dawadayaal waxaanu ku sugannahay magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waa magaalada ugu dambeysay ee muddooyinkii ugu dambeeyay dagaalada dhibaatada badan ku aafeeyay qaaradda Afrika ay ka socdaan iyadoo magaalada muqdishona ay muddooyinkan ugu dambeeyay ku soo dabaalmaysa dhinaca nabadda balse ay dhibaatooyin xoog leh ay ku hayaan qaraxyada kala duwan ee ay ka fulinayaan xarakada al-shabaab ee ka dagaalanta koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya hadda waxaanu ku sugannahay bartamaha magaalada muqdisho jidka hormara Maka al-Mukarrama loo yaqaano waxaanu ku soconnaa hoteelka Central oo muddooyinkii ugu dambeeyay oo muddo hadda laga joogo 2 toddobaad oo ka dhacay qarax ballaaran oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof isla markaasina in kale ay ku dhaawacmeen oo taasi la mid ahi haddaba jidkan ayaa waxa uu yahay jid aad iyo aad u diisiya isla markaasina si xooga saxmad u ah waana jidka wadnaha ah ee ugu badan magaalada ganacsi badan inuu jidkani uu ka furan yahay haddaba hoteelkan ayaa waxaa lagu qarxiyey hab farsamaysan oo si xooga looga soo shaqeeyey taasi balan isku dayi doono inaan wax ka weydiino maamulaha hoteelka iyo dadkii goobjooga ka ah qaraxaasi waxaan halkan idinku diyaarin doonaa barnaamij saxan ah oo kooban oo socon doona muddo ka badan 35 daqiiqo oo la xidhiidha in aanu bal isku dayno xog dheeraad oo ku saabsan qaraxii ka dhacay hotel Central ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya barnaamijka ayaa waxa idin la socodsiin doona anigoo Maxamed Cabdi Liga waxaana barnaamijkan si xooga iga caawiyay Bahda Home Cable TV ee magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya halkani waa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaanu ku sugannahay hoteelka Central ee magaalada Muqdisho iyadoo hoteelkan yahay kii ugu dambeeyay qaraxiis midaaminta uu ka dhacay muddo 2 toddobaad ku siman ka hor haddaba hoteelkani ayaa waxaanu ku booqannay mulkiilaha hoteelka iyo howlwadeennadii kale hoteelka ka shaqaynayay si aanu xog dheeraad uga ogaano qaraxii 2 toddobaad ka hor ka dhacay hoteelkani barnaamij documentary oo la xiriira qaraxani ayaa waxaad kala socon doontaan telefishinka caalamiga Home Cable TV oo si toos ah idinka soo diyaarinay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya kaasi oo haatan aanu ku sugannahay afaafka hore ee hoteelkani
daawadayaal halkani waa telefishinka caalamiga Home Cable TV xaruntiisa magaalada Muqdisho waxaa muddo 2 toddobaad ka hor uu qarax ka dhacay Hotel Central ee magaalada Muqdisho qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 22 qof isla markaasina waxaa ku dhaawacmay tiro taasi kor u dhaafaysa haddaba dadka qaraxyadaasi ku dhaawacmay ayaa dhibaatooyinka xooggan ka soo gaadheen ayaa waxaa lagu kala daweynayaa wadamada Imaaraadka Carabta Turkiga iyo waliba magaalada Nairobi iyo xarunta dalka Kenya sidoo kale magaalada Muqdisho isbitaalada kamid ah ayaa dadkii dhibaatada ay ka soo gaadhay haatan ku jiraan haddaba qaraxani ayaa waxa aanu isku daynay bal inaanu xog dheeraad ah aanu u bandhigno bulshada Soomaalida meel kastoo ay ku sugan yihiin iyadoo xogtaasi dheeraadka aanu isku daynay bal inaanu faahfaahin dheeraad aanu ka weydiino maadaama hotelka dib loo furay isla toddobaadkani xaflad ballaaran oo lagu furayna lagu qabtay magaalada Muqdisho oo dib loogu sheegayo in shaqadii caadiga ah ee hotelku ay dib u soo noqotay waxaan la kulmay mulkiilaha hotelka Axmed Ismaaciil oo ku sugan isla xafiiskiisa magaalada Muqdisho ee hotelka Central bal ugu horreyn waxa aan weydiiyay inuu faahfaahin ka bixiyo bal sida ay wax u dhaceen iyo aragtidii markaasi goobta ka dhacday Axmed ku soo dhawaad Home Cable TV bismillaah maxamed cabdi aad baad u mahadsan tahay runtii waxay ahayd dhacdo xanuun badan 20 bishii February ayay ka dhacday hotelka qarax weyn oo xilli salaada jimcaha la tukaday runtii ka dhacay masaajid ay ku tukanayaan ilaa 300 qof ayaa qaraxaas ka dhacay markii salaada in yar laga baxay oo dadkii intii ugu horeysay ay kacday ayaa waxaa dhacay qarax weyn oo gaariya anigu markaa waxaan ku tukanayay masaajidka gudihiisa safka labaad baan ku jiray markaa dadkii ugu horeeyay kacay ee albaabka ku sii dhawaabaan ka mid ahaa waxaan ku warhelay qarax aad u weyn oo runtii daqiiqadii ugu horeysay dadku waxaan ma maqlay waxaan ma arkay waa meesha siiga xoog iyo qiiq ayaa qabsan gidaarkii masaajidku wuxuu isu bedelay jiid dabeedna dhulku la simay dadkii markaa waxaa ku soo dhacay gidaarkii saqafkii jiingada iyo alwaaxdii markaa anigu halkaasaan ku jiray waxaan odhan karaa madhaate 30 daqiiqo ugu horeysay 30 sekond ugu horeysay dhaawaan miyir doorsoomay baan u malaynayaa waayo waan dhacay dib baan u dhacay laakiin waan soo miiraabay anigoo laakiin waxba maqlay waayo saqadha waxay wax khayr la caadi culayska dhacay culayska meesha ka dhacay markaan ka soo baxay anigu oo aan ahaa qofkii ugu horeeyay kaba soo baxa meesha ayaan qaraxii labaadna dhacay adoo dibadda jooga qaraxa labaad markaa in yar baan isku dhaafnay xayar baan isku dhaafnay shabagan hotelka kala xidhxidhaya ayaan markaa ka dambeeyay markaa qaraxa labaad dabeyshiisii iyo awoodiisii ayaa cagaalka iga qaaday markaa horaan u turunturooday dad aad u tiro badan baa meesha wax ku noqday ku dhaawacmay ku dhintay runtii maalin aad u xanuun badan bay ahayd saas sheegtay dadkii ilaa 22 baa ku dhintay inkastoo dad badani runtii gubteenba oo huruushoodeen oo hilba meesha laga soo ururiyey waayo xitaa waxaad ku garanaysaa inaan la garanay xitaa waxaa ku dhintay xabaal wadareed badka lagu aasay oo inta god weyn la isaga qoday ayaa hilba badan oo la ururiyey oo mid cag laga helayo mid gacan laga helayo mid lug laga helo ayaa inta la isu geeyay xabaal wadareed lagu aasay marka runtii dhaawac badan baa ka dhacay dhibaato badan baa ka dhacday Axmed marka loo eego sidii wax u dhaceen iyo qaraxa awoodda inta lagle habkii u dhacay marna ma ku fikirtay culayska inta leegyado salaad jimca laga soo baxay in oo mufaajahada inta leegaydan ku dhacdo inay iman karayso oo dareenkaaga ma ku jirtay marnaba marka hore maya marnaba kuma jirin waayo anagu cadow dibadeed baan iska ilaalinayay hotelka hadaad aragtana meel walba waxaa taagan waardiya taagan waxaanu iska xidhnay gidaaradoo dhan barriers baa ku xidhan marka awood dibadeed oo nagu timaada mooyaane in gudaha iyaga cudur naga geliya marna kuma aanu xisaabtamin masaajid ahaan marka loo eego iyadoo goob lagu cibaadaysanayo ay tahay maalin jimca ay tahay
iyada lafteeda markii ay wax ka dhaceen dareenkaagu sidii uu noqday kadib sidee kuula muuqatay masaajidka laftiisii iyo salaadii oo dee waktiga qofka bini aadmiga uga cibaado dhow yahay inay awoodda intaa laga qarxa ama dhibaatada intaa lagaga dhacdo iyo runtii waa arrin aad u yaab badan weeyaan waayo dadku dad islaam oo masaajid ku tukanaya ahaay in masaajidkii aad cibaado tagtay ilaahay dambi dhaaf kaga doonaysay lagugu dilo oo weliba dad diin sheeganaya kugu dilaan wax mucjisaab ayaan galo noqotay wiswis badanna way kala gebigaygiba marka de waxaanu filaynay ma ahayn runtii wax la filayay ma ahayn nin la yidhaahdo Salaad Cali Jeello oo ka hadlayay xafladda ayaanti dhaweyd hadalkiisa runtii xigmad ku filan wuxuu yidhi aniga masaajidka waxaan u tagay inaan cibaadaysto oo ilaahay janno ugu dhowaado gabadha waxa qaraxsana jannay doonaysay buu yidhi meel laba ilaah baa jira buu yidhi labadayda sakee khalday culimadu inay kala xadiisay buu yidhi waayo dadku markay cibaadaysanayaan masaajid ku jiraan qof walba u dhawaasho ilaah buu doonaya jannu ilaahay ka doonaya dambi dhaaf buu ilaahay ka doonaya gabadhanina dee madha caqligeeda waxaa ku jiray sida dadka muslimiinta leyntooda in janno lagu helayo allahu yaclam dadku waxay leeyihiin oo inta badan xogta ay tilmaamaysa inay gabadh kuu shaqaynaysay oo hoteelka ka shaqaynaysay ay ahayd gabadha isqarxisay bal gabadha nooga waran sidee shaqadan ku gashay ka hor intaanay isqarxin gabadhana waxay shaqada soo gashay bishii August horaantii sanadkii 2014 waxay ku soo gashayna codsi ay soo samaysay iyo ibtixaan laga qaaday iyo dad soo recommend gareeya ama soo jeediya qofkan in la qaato oo markaa shaqaalaha ka mid ah anigu markaa ma joogin nin kaloo saaxiib aan naado businesska wada leenahay baa joogay isagaa interviewga qaaday dadkii interviewga lagu qaaday qofkii ugu aqoon fiicnayd baa anigu markaa waxaan soo noqday bishii la oran jiray October 22keed baan soo noqday markaa Ingiriiska ku maqnaa iyadoo shaqayso oo xafiisku shidan yahay oo howlku shidan yahay oo shaqadeeda iyo mas'uuliyadda si fiican uga adag ayaa soo noqday anna markaan eegay shaqadeeda waa la dhaxay hay'ad la yaab kale waxay ahayd haddii shaqadeeda xumaato gabadhaas iyadoo ooysa ku yimid oo kule shaqadeeda waa la xumay shaqada saasaa loo kala markaas waa jira nasiibad iyo wax qofka noocan ilaahay keenay marona waxay daashadada shaqada garanaya marka qof shaqadeeda ka adag bay ahayd qof dadkoo dhan sympathy u hayaan ama naxariis u hayaan bay waayo 7-6 ciyaal ay haysatay oo tiri aabahood waxa dilay duumo iyo waxba dilay bay tiri marka qof kasta oo ku jira sympathy u hayo waxa markii dambe ogaaday qof aan lacag siin jirin ma jirin walaalka qof walba lacag buu siin jiray nimankii lacag dheeraada markay biilka dadka ka qaato qof walba iyada wax ugu diri jiray waxayna samaysay hab ay dadku ku soo jiidasho iyadoo dadku ku soo jiidato oo qof walba sympathy ka samayso marka waxay qof runtii aqoon leh ilaa 4 luqadood bay ku hadli jirtay Ingiriis, Carabi, Soomaali iyo Hollandiis bay ku hadli jirtay marka hore ka timid marka hore waxay ka timid Holland waan isleeyahay midhaw ku dhalatay dabadna Ingiriiska ay u guurtay Ingiriiska ka soo noqotay waa halkan ka soo marka shaqada soo doonanaysay meel kale ka soo shaqaysay anaga markii uu horeysay dalka tima anaga shaqada meel kale ka soo shaqaysay marka qof noocaas ay qof tahayd runtiina markii ugu horeysay la sheegay waan qaadan waayo qof qaatay ma jirin nin baa waxa laga sheekay ka wadaa nimanka wasiirada meesha deganaa haddii aanay ku dhiman oo la xidhi lahaa qofka soo dambeeyay ugu horeeyaan uu noqon lahaa buu yani aaminaada ay ka socotay aaminaada ay ka socotay sax magaceeda ma noo sheegi kartaa waxaa la yiraahdaa Luul Axmed Daahir baa la yiraahdaa marka taariikh ahaan iyo halkay ka timid iyo qoys ahaan markii dambe dhibaatadu dhacday kadib aad wixii isla eegteen qof nooceey bay noqotay ama halkii taariikhdeedu caga dhigatay niyo horta gabadhaasi saan ku sheegay markii ugu dambeysay Ingiriis bay ka timid waxaanan aaminsanahay inay Holland ku dhalatay waayo da'deedu ma weyna reerkooduna Ingiriis ba markii dambe u guuray waxa la yiri wax dadku yiraahdo Soomaalida way iska qabaayil weeyaan waxa la yiraahdaa gabadhaas waxay ahayd reerka gurgura la yiraahdo hooyadeedna waa reer Boorami
dad badan baa sidoo ka yidhahda hooyadeeda ama beesha dhexe waqooyiga bay ahayd ama iyadaaba ahayd beesha dhexe waqooyiga may ahayn gurguray ahayd hooyadeedna waxay ahayd reer Boorame ahayd marka waxaa dabalkii dabaan ogaanay markii horena waa gooday oo gabadh gurgura ah oo dira ay meesha ugu shaqayn jirtay tii qof la soo dhaweynaya runtii bay ahayd moogta caruurteeda marna ma aragtay adigu maadaama mulkiilii hoteelka ahayd caruurteeda waan arkay sawiradoodana waan arkay aragti ahaanna waan arkay ma habeen bay hudheelka keentay baa la yidhi ciidkii ramadaanta anoo maqan ayay hudheelka keentay markaa anigu markaa ingiriiskaan joogay markaa hudheelkay keentay sawiradii hudheelka lagaga qaadqaaday baan arkay caruurta yaryar iyo dadkii shaqaalaha waa ugu sheeganay lixdii baan arkay anigu laakiin ka ugu yar baan arkay oo maalin ay wadatay oo hudheelka ma tigi waliba qolkay apartmentkayga ay cabaar ay ku haysay ilmo yaroo sanad iyo xoogaa jira oo gabadha marka caruurteedu way jirtaa ilmo yaroo sanad iyo wax yar sanad iyo xoogaa ku jira waa gabadh yar Axmed su'aasha ugu weyn waxa weeyaan dadku inta badan isweydiinayaan suurtagalnimada sidoo qaraxan awoodda badan oo dheerka uga dhex fuday mas'uuliyiin badan baa degan ra'iisul wasaare ku-xigeenkii baa deganaa wasiirraa deganaa saraakiil ciidan baa deganaa waxaa deganaa dhalinyaro kale oo hay-adaha caalamiga ka shaqeysa waxaa jiray dad waaweyn oo mas-uuliyiin adiga iyo mulkiiliya baa joogay يعني وديرك أودي أنت على قوبت أمانك دينا أول بعيد كفديان كتير سيدو وقفلي قرحة أنت اللي قام يدو بصورتك. horta saan ku sheegay gabadhu waxay ahayd mas'uul sare oo ka tirsan shaqaalaha hudheelka mas'uuliyiinta ugu sarreysa ayay ka mid ahayd waxay samaysatay kalsooni badan ay shaqaalaha dhexdooda ka samaysatay maadaama ay ahayd mas'uuliyiinta ugu sarreysa hoteelka waxaan isleeyahay habacsanaan iyo iska dhaadhicin ay shaqaalaha security iska dhaadhicisay ayay u suurta gashay inay horta hubka iyo qarxa soo geliso waxaase aan ogaaday markii aan qolada nabad sugidda u tagnay interviewgana laga qaaday inuu jiro hab cusub oo dadka gawaadhida baaraya aanay ogaan karin oo miinooyinka loogu soo xiro gawaadhida aanay ogaan karinba wuxuu ii sheegay nin nabad sugidda ka tirsan in uu jiray gaari nooha oo loo soo sheegay gaarigaas inuu miinaysan yahay dabadna gaariga waanu tobanka loo waanu qabanin dabadna waxa waan kowda qoladii noo soo sheegtay baan ku noqon waxaad noo dhugeysaa allah idin dhugooyi dabadna waxay dhahaan gaari waa miinaysan yahay qabtay annaga idin dhigi gaariga waa la qabtay yeelash baa la geeyey waa la baaray niyadu waa laga helay marka informationka noocaas ee nabad sugidda haysay cidna lama sheer karay marka qolada security waxay leeyihiin gaariga waanu baadhay waxna kumaanu arag qolada nabad sugiddana waxay leeyihiin waa suurtagal inay sidii aan la heli jirin ay u soo sameeyeen waayo daaqadaha inta la furo ayaa la dhisayaa daaqadaha gudahooda lagu dhisi karaa boriga iyo maaragtay dhashka warka ayaa la soo furayaa dhexdiisa lagu dhisayaa bay dhahay marka qofka caadiga ee systemka caadiga loo baari jiray xagga hoose iyo xagga dambe fur iyo gawaarida la eegi jiray laguma heli karo waa system lagu sameeyay gaariga lagu sameeyay marka shaqaalaha iyagu umay samaysnayn uma tababarayn nalaamana shay macluumaadka noocaasan cidina lama sheer karay marka anigu waxaan aaminsanahay horta farsamo noocaas nagu dhacday oo gaariga lagu soo geliyay gaarigana waxaa la soo geliyey maalinta gelinkeedu hore inta salaada la aadin ayaa la soo geliyey sheekooyinka leeyahay dhowr casho yaala xog ma jiraan maalintaas la soo geliyey waxaan aaminsanahay in kastoo de keesku kees wali gacanta lagu hayaa ay tahay laakiin fikriyan waxaan aaminsanahay inay iyadu soo gelisay oo wadayba waayo muddo 2 wiil waxay naga qaadanaysay 1 saac oo fasax oo ay gaari soo marto duhur أنا فسحاسيو تقفل بس إن بتعرورت دجاج موت ورت عرورت ذاك عكحيسته العون حريص بدنا كبرهان يعرورها عرورت لو شاب عرورت ذاك حمسة كارح تنيجي وشعرها يكارك يربطها طبعا إحنا نروح هاي أكاد كيستي وسيدا يدي كاري برانس مركا أنا وحنا مسنا كارك إن يد الله صوك شيء لكن ده كيس كده بتاع كل دولة دوم بقى تنبي بارس كوساميسي
marka horta sheekadu saasay u dhacday waxaana aaminsanahay in farsamada gaariga lagu soo geliyay nooca ahayd shaqaalaha iyaguna ay suurtagal u noqon wadeen inay arkaan gaarigaas inuu meenaysan yahay tan la sheegayay la leeyahay shaqaalaha nin baa hodheelka sii deganaa caawinayay nimanka askarta ku shaqaynaya laftooda lacago badan ku bixinayay raacidooda iyo wada shaqayntooda iyo wada joogooda iyo adeegyada uu fushanayo oo markii dambe hodheelka ka baxay ma jirta taas horta keeskan wali saa kuu sheegay waa kees baaris ku jira in waxaanan ogeyn ka sheekeeyana dee khalad bay noqonaysaa waxaan is leeyahay anigu qof noocaasa moogi oo muddo dheer ku jiray haddaanu dee ognahay waa qaban lahay laakiin qofka muddada dheer ku jira ee hodheelka gabadha la shaqaynayay annagu hotel ahaan ma ogin waxaase laga yaabaa dee inuu baarista ku soo baxo markay nimankan baaristooda dhammaystaan inuu ku soo baxo xaqiiqadu iska cadaato shaqaalaha iyaguna dee badankoodu waaba xidhan yihiinba marka hadday jiraan qaar la shaqaynaya dee way ogaan doonaan laakiin annagu hadda dafirina mayno taageerina mayno waayo bal axmed waxaad noo sifaysaa dhacdadii markuu gaarigu soo galay aroortii la dhigay masaajidkii la tukaday sidii ay wax u dhaceen bal intaa ummadda uu sife dadka ku dhegaysanaya gaarigu waktiga uu soo galay waxay noqonaysaa abbaara 10 ilaa 11 meelahaas waa qiyaastayda waa khaldanaan karaa anigu 11 masaajidkaan sii galay safka labaad baan fadhiyey masaajidkaan ka sii galay dadka badankooda masaajidkii joogeenba dadkii aan masaajidku ka buuxsameen aan bannaanka ku tukaday anigu waxaan isleeyahay gaarigu xilligaasuu soo galay waxaana la dhigay albaabka masjidkaa la dhigay albaabka un baa laga duway dhinaca masjidka albaabka meeshaan ku tukanayey iyo gaarigu meeshuu yahay 2 mitir bay isu jireen 2 mitir marka horta gaariga halkaasaa la dhigay waxaan markii dambe ogaanay gabadha gaariga qarxisay inay soo gashay hool shirarka oo nagu xigay masaajidka ku xigay ayay soo gashay dad markii dambe arkay oo ka sheekeeyay baa jirooyin waxay tahay halkan maanta khudbadda ka dhageysanaya masaajidka khudbadda maanta halkan aan ka dhageysanaya waxaana loo yaqaano qof diimeed baa loo yaqaano qofna suspicion kama qaadin laakiin haddii la ogaan lahaado maamulka la soo gaarsiin lahaa in halkan luul ku jirto dee waa wax cusub markaa dareen bay kicin lahay niman security-ga ogaa shaqadiina qabsaday tiri halkan khudbaddan maanta ka dhageysanaya marka markii salaada laga baxay assalaamu calaykum la yidhi waxaan ka badnayn 1 minute ama 1 minute and half daqiiqo iyo badh waxaan ka badnayn ka bacdi oo dadka badankoodii intii dheeraynaysay albaabka ka baxday ayaa horta qaraxaasi dhacay qaraxaasu bira iyo dab iyo awood dabaylo xoog anigu de wax noocan oo ka asla nuclear iyo waxbaan madmooda meesha nuclear baa ka dhacay baan sii moogta awoodda baalkaasi wixii laga sheekayn jiray isma balahayn Soomaali baa aqoontan bale haddii aqoonta leedahay dalka maxay isaga qabsan waayeen baan sii moogta baxal awood badan oo sanqar weyn oo gaarigii fitir faatir u qaaday gaarigii dhammaa wuxuu ka dhigay bir yar oo midho saasoo wada rasaas midho noqday moogta oo waxyaabaha la sheegay dadka la hayeen dhaawac waa gaariga bariis gaarigii baa qoqoay oo intaasoo midho noqday bolbeerinadii baa qoqoay oo dadka rasaas ku marka dadka badankoodu waxaa laayay gaariga laayay wadaday awoodda diinta qaaday ay shabag dhan oo gidaar meel shabaga jiray oo masaajidka dhinaciisa ilaa dhowr iyo 10 qof shabagayba saartayba intay qaatay dhulka ka qaatay ay shabaga saartay qaar ku jiray 1 mitirna ilaahay waxba kuma yeelin wax weeyaan qof walba marka naftiisa loogu talagalo ayagu haysa nin baa jiray wax mitir ka yar oo siiri markii dhabarka xanuunayado si jaada soo laalaabo foorarsadaba dabkii iyo holcii dushiisa maray dabadna beerku sii dhig kuwii ka dambeeyana way leedahay waxaad mooshay lotari ma maqli waxa lotariga la yidhaahdo wax lotari oo kale ay ahayd moogta
marka dadka badankooda halkaasay ku dhinteen laakiin dadka ugu badan ee badbaaday dadkii masaajidka ku jira bay ahayd gudaha masaajidka ku jira dadka ugu badan ee badbaaday marka markuu qarxii hore dhacay kii dambe ileen gaari baa qarxay qofna ma filaynin luulo xafiiskii ka shaqaynaysaa inay dareenkan qabto ama ushan qayb ka ahayd ama ay fulisay ama gaariga ay samaysay ama iyada lafteeda ay nafteeda goynayso qaraxa kadib gaariga halkay iyadu ka timi sidayse meeshan ku gashay oo ay hawsha u bilowday oo shaqadii loo baahnaa ee ka shaqaynaysay uga tagtay baltaa noo fasir horta gabadhu keligeed way lahadan baa loogadaa al-shabaab bay ahayd shaqadana maalin jimcaha bay ahaydoo maamulka iyo dadkayga madaxda masaajidkan ku jira qof kalena maamulka sare ayuu ka mid ahaado ilaalinta guryaha iyo kastamarka ama macaamiisha in raaligelintooda laga shaqeeyo iyo qof soo cawday in loo taga iyo xitaa isla markaas waxay tagtay guriga deputy prime minister ay tagtay maxamed cumar artaaqale ayay tagtay gurigiisa ugu tagtay iyadoo isaga doonaysa nasiib wanaag markaa weli muu soo gelin gabadhii cuntada u karinaysay u tagtay waxay ku tiri maxamed maanta ma imanayaa qadaalka ma ka qadaynaya markaasay tiri ma hubo laakiin kolley waa jimco kolley wuu joogaa way ka soo noqotay maxamed markaasuu yimid gaarigiisa masaajidka hortiisuu dhigtay waa gawaarida baabaaday ee gaariga bilad buuska nafsu baabaaday markaasuu masaajidku soo galay anigu gudaha markaa ku jira albaabkii soo taagay wuxuu arkay masaajidka oo buuxa banaanka ku tukay marka gabadhan awood waxay u lahayd inay meesha qofka shaqaalaha seniorka ahayd ee mas-uulka ahayd meesha dowladtay kale ogaan waayo hoolka meetingka inay dee cidi imanaysa kale iyada ogaan lahayd moogta marka qofka arkaa kaba shakiyi maayo in iyadoo hoolka meetingka gelaysa talow ma cid baa xaflada ku lehoo ay u hagaajinaysaa buu qaadan lahaa moogta marka gabadhan hadday ka soo baxday xafiiskeedii dhib weyn may lahayn waana ka bixi karaysa banaanka u bixi karaysa oo shaqay soo qaban karaysa marka taasu shaki ma abuuri karayn hadday abuuri lahaydna maamulka oo dhan masaajidka ku jiray xitaa ninka security ku qaabilsan masaajidka ku jira markaas oo dadku dee martay masaajidka loo sii kala hormaray waxaan ku weydiin lahaa axmed gabadhu maadaama ay qaraxii hore fulisay kii dambena iyadu isku dishay labada qarax dhibaatada ka badan geystay ma ka dambaa mise waa walaalow taa cidina caddayn kari mayso anigu waxaan aaminsanahay gaarigu inuu khasaaro badnaa baan aaminsanahay waayo dee way kala weynaayeen qaraxna dee waad garanaysaa qof buu ahaado sanqadhiisu haba iska xoog weynaatay laakiin lama mid ahayn kii gaariga ka gaarigu laakiin guryahoo dhan iyo meel kasta dhulku la simay waxa albaab iyo daaqad hodheelku leeyahay dhulku la simay waa wada burbure marka waxa sidii dhulgariir oo kale ayuu ahaa laakiin kan gabadhu anigu banaankaan joogo ani kuu sheegayay anoo sii socda ayuu dhacay dabayshiisa iyo hanfigiisa ubay soo gaaray dabadna way sii tuxtuxiyeen laakiin dadku dhintay wuu jiray goormaad ogaateen inuu tahay oo gabadhii kula shaqaynaysay in yar ka bacdi markii ciidamadu yimaadeen aniga waa la kaxeeyey oo nabasguddaa kaxaysay waa la xidhay fiidnimadii ayaa la yimid oo lay sheego la yidhi gabadhaa ka war dabadeedna de waxaan ka warraba shaqaalahay ka mid ahayd baan ma dhib baa soo gaadhay ka warran male haddii gabadhaas tahay gabadhii udheelkaaga baabiisa waa u qaadan waayey sida qof walba ugu qaadan waayey waa loo qaadan waayey axmed waxaad nooga warantaa maadaama adigii lagu qabtay markii hawshii dhacday lagu xidhay shaqaalahaagii la xidhay sidaad u sheegaysa laguu sheegay inay gabadha tahay sababtii adiga laguu xidhay ee maadaama dhibka adiga ku soo gaadhay su-aashaasi dad badan ka fikirayeen inay isweydiiyaan marka maxaa adiga lagu xidhay lagu qabtay muddo intee leeg baad saxid horta anigu waxaan xidhnaa muddo 5 casha aniga laftiga su-aasha weli waa isweydiiya war horta maxaa lagugu xidha mararka qaarkoodna waxaaban dareemaa niyo madhaadi meel khaladaad joogtaad oo ka shaqaysanaysaaba
waayo waxaan aaminsanaa haddii dhibtan oo kale igaga dhici lahayd waqooyi oo kale deegaankii aad ka timid hargeysa laascaano baday igaga dhici lahayd dadka meesha joogiyo maamulka nin majarafad soo qaatiyo nin murugiisa keeniyo nin duca keena dadkoo soo gurmanahay laakiin halkan ninkaygii dhibta intaa leega ku dhacday xoolihiisii kastamarkiisii businesskiisii intuba baabeen oo u baahan in counseling ama la talin lagu sameeyo maskaxdiisa la dejiyo in xabsi laygeeyo runtii waxay noqotay waxaan qaadan kari waayey in badanna aad baan isu weydiiyey laakiin wax walba anaa isdejinayado waxaan dhahdaa axmedow wixii meesha ka dhaxay maxay ka noqonaysaa xadhiga yari dabadna waxaa waxba ka noqonay waayo maxamed meesha dhibaato weyn baa ka dhacday dad badanna waa ku dhintay asxaabtaydii kastamariskaygii ragaan hebel miidhan u garanayo ayaa meeshaa ku dhintay oo runtii habeenadii o dhan ka seexan kari waaye waayo qaar baa nala deganaa intaanu furnayd baa nala deganaa ilaahay waxaan uga baryayaa in uu jannadii firdowsa ka waraabiyo ehelkoodiina samir iyo iimaan ka siiyo wixii ku dhaawacmayna caafimaad degdega ilaahay siiyo gabadh ahaan markii hawshu dhacday waxaa la sheegayay in ay doontay inay ra-iisul wasaaraha isku duubto gabadha qorshaheeda iyo fahankeeda iyo dilkeeda ugu dambeeyana uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka taasi miyay jirtaayo maadaama goob joog ahayd adugu inkastoo aan fariirkii dee dhibkii dhacay wax badan kala daadiyay laakiin ma jirta gabadhanu ujeeddo kale ma lahayn waxay doonaysay inay deputy prime minister ka disho qorshaheeduna kaasunbuu ku ekaa waxaan kale waa dad uu iska maray taayirku looma socon laakiin feker bay qabaan iyagoo qof doonaya kun qof hadday ku dhimanayaan in cagta mariya marka markii qaraxu dhacay waxaa lay sheegay in iyadoo ordaysoo leh abti aaway leh inay ka soo baxday hoolka dabeedna nin security deputy prime minister ka midka ayaa inaa joog oo bastood ku qabtay baa leeyahay joog qarax baa dhacay joog qarax baa dhacay dabeedna markaasay iyadu isqarxisay waxaa taa ka marag ninkii waa dhintay joog lahaa wuu dhintay in waxaa security ra-iisul wasaare waxaa arrintaas kofeegareeyey nin dhowr casha ka bacdi kooma ka soo baxay oo qaraxii hore gaadhiga ku dhaawacmay dabeedna arkayey wixii meesha ka dhacay haddadaa hadduu arko gabadh sidata niqaab iyo maaragtay dedan saas buu iga joojiyo gabadha iga qabta gabadhaas wadda isqarxinaysaa iga qabta macaa iyadoo gabadh xijaaban oo isqarxisado ilaac bay isu bedeshay buu yidhi mar keliya ilaac isu bedeshay marka waqtad buu ka qaaday waxa la wixii xijaab sitan inuu ka cabsado iga qabta hadday qarxisa iga qabta marka gabadhaasu waxay doonaysaa deputy prime minister inay hubsato inay disho nasiib wanaag uma suurtagelin runtiisay doonaysa inay wax u samayso iyo sida wax u dhaceen farqi weyn baa u dhexeeya meeshaa dadka joogay 300 way ka badnaayeen mas-uuliyiinta joogtay 50% way dham ayay ahaayeen dadka populationka ilaa 9 wasiir oo deputy prime minister ku jiro ayaa ku tukanaya masaajidka maalinta joog ilaa 30 xildhibaan way joogeen waxaa ku dhintay laba xildhibaan laba guddoomiye ku-xigeen iyo agaasina ku-xigeen dadka mas-uuliyiinta taas wax kala shacabinay dhalinyar baa jirta iyaguna markii dambe meydkooda xataa hargeysa loo qaaday shacab bay u badnaa oo shacab badan mas-uuliyiin dawladeed ma yahay ha waan mas-uuliyiin garanayaa inankaas maalintaasi ba yimid allah mahadsan cabdixamiid annaga shaqaalaha iyaga 2 qof baa naga dhintay 2 inan baa naga dhintay runtii aanu dhabarka kaga jabnay nin kaashiyaar ahaayoo fuaad la odhan jiray iyo nin waiter ahaa ama maaragtay ninka cuntada dhigdhiga oo cabdiqani la odhan jiray 2 inan reer waqooyi bay ahaayeen allah u naxariisto 2 shaqaalaha ka dhintay waxaa kale ninka dakharka yari soo gaadhaa ugu badan in shaqaalahagii qaar baa xidhxidhan maxay ku xidhayin ilaa inay hawsha maadaama hawl adag ay dhacday inay wax ka ogaayeen caawiyeen fahmeen yani duruuftan sababeen maxay ilaa imika ku xidhayeen
shaqaalaha xidhan badankoodu waa security weliba maalintaa joogay waxaana isleeyahay de kolley midhaa baadhisun bay u xidhan yihiin sabab la-aan uma xidhna waxaa ku jirta gabadh ahayd kaashiyarkayga gabadhaas waxay ahayd gabadhii keentay luul shaqada keentay ilmaabtina way ahaayeen ilmaabtay ahaayeen marka gabadhaasuna waa xidhan tahay laakiin gabadha hudheelka iyadu deganayd bannaanka lamay noolaan iyada de kolley waxay haystaan dowladda og laakiin ilaa 14 ilaa 15 qof baa xidhan oo u badan security 2 gabdhood iyo 13 inaan baan u malaynaya ayaa xidhan laakiin isugu jira cid walba isugu jira waqooyi iyo koonfur iyo meel walba isugu jira waayo shaqaalaha iyagu waxay ahaayeen cid walba way ahaayeen cid gaar ah anagu maan qoran jirin marka markay waqtigooda dhamaystaan iska soo geli in fikrado waxaan ku arkay muqdisho meelaha maadaama meel ammaankeedu culays badan saaran yahay qofka meherad leh ama qofka shaqaysanaya inuu yidhaahdo qoyskiisa meheradiina ilaashadooda ka shaqaysta marka taa lafteeda ra'yi ahaan hodheelkaaga kamay jirin miyaa mise way ka jirto way ka khafiifsanayd si aad dhibaatooyinka dadka kale ay xoogo ilaashadaan runtii annaga kamay jirin laakiin waxaanu samayn jiray oo badi aanu samayn jiray dadka hodheelka nooga shaqeeya damaanad baanu weydiisan jiray cid ka mas-uula iminka dadka security oo dhan dad baa nooga mas-uulaha cid baa noo keentay mas-uula ama xildhibaan ha noqoto ama madax dhaqameed dad baa nooga mas-uulaha dadka xildhibaanada anagu saasaan ku qaadan jiray laakiin iminka waxayna bareen dee 10 cusubo qofka nafteeda ku aaminayno uun baanu iminka dadka ku aamini karayna waxaa wax badan baanu ka bedelay qof allaale qofkaanan 100% hubin runtii waanu sii daynay waa suurtagal inaanu dulmi ka gallay laakiin khatar dambe ma qaadan karin waad ka taxadiraysaa in hodheelka gudaha baabuurtu soo gasho iyo caqabada ugu badan ee culayska ugu badan ka dhacay baa ayaa dadku aaminsan yihiin taas sidaad uga gaashaaman kartaan si aanay wax dambe u iman waxaan iminka isku dayaynaa inaanu kaar baag bannaanka helno wada hadal fiican baa meel wanaagsan noo maraya kaar baag aan naga fogeyn inaanu helno muddo dhow laakiin iminka waxaa noo qorshaa qof aan hodheelka deganayn mooyaane inaan qof kale gaari la soo geli karin kaa deganna waa qof mas-uuloo weyn marka waxaanu kaloo samaynay in qof kasta oo gaari la soo galo hodheelka degan in gaarigiisa la qoro laysankiisa la qoro inuu isagu leeyahay inaan sharci gaari yahay marka waxaa dhacaysa in gaari layskala soo galo number bileedka uu sitaa hadduu doono mabaha kiisii muqdisho waxaasaa ka jira gawaadhida qaraxdaana noocaasay u badanta number bileed aanu lahaan iska soo qaadanaya marka iminka systemka aanu samaynay waxaa ka mid ah in gaariga iyo nambarka iyo darawalka laysu eego dabeedna gaariga la baaro qofkuna hodheelka degan yahay inta aanu kaar baaga ka dhammaysanayn laakiin waxaan rajaynayaa muddo aan fogeyn inaanu kaar baag gawaadhiduba lagaga caagiyey hodheelka inaanu helno insha allah rajayn marka dhibaatadan oo kala dhacdo dawlad baa wadanka ka talisa mas-uuliyiin baa jooga dad culimaad diin ganacsato dhaqan waxay baa jooga dawladdii iyo dhibkan kala hadashay ee kala kulantay duruuftan iyo samata bixinteeda iyo dee siday waxaayeen iyo dawladdii cilmi iska aragtay markaasaan ku sheegay anaga waabati la xidhayba dawladda xarig baan anugu ka arkay mararka aan ku lahaa niyow midha waxaanu ka kalluumaysanaynaa biyo khalada oo mararkaan arkay moogtay xamar may ahayn qaraxii ugu horreeyay annaga mu ahayn 100 hodheel oo kalean la qarxiyey dad badan baana ku dhintay laakiin waxaa jiri jirtay mar kasta oo meel dhibaata ka dhacdo madaxda dawladdu way tegi jirtay niyadda ha loo dhiso dawladdu ha ogaato ha asas karaysa waxa meesha ka dhacay waxaasoo midhan baa loogu tegi jiray annaga booqashana soo booqday iyo simbatina loola yimaada iska daaya
xarig baabana loogu daray marka annagaa ismaamulay annagaa dib u tashanay fikirkayguna wuxuu noqday runtii anagu aan go-aan ku qaatay waxay ahayd xamar qaraxu iska caadiya hudheelada ninka ilaahay ka badbaadiyo qaraxaas dee ma cararee wixiisa dib buu u samaystaa aniguna go-aan waxaan ku gaadhay inaanan cararin aanan noqon qofkii ugu horreeyaa carara isla markaana hudheelkii dib u dhiso waayo waxaan u arkayey runtii inay naftayda iyo deegaanka ka soo jeedaba inay ceeb ku tahay in la yidhaaho hudheelkii markii la qarxiyaba yaa ceeb bay ku tahay jaaliyad weynoo reer waqooyiga meeshan degan bays bay meeshan u ahayd santar bay u ahayd anna ganacsadaan ahay ganacsataduna meelaha khatartaa way tagtaa waayo waad arkaysaadoo south africa oo soomaalida habeen walba lagu laayo waa laga shaqaystaa south sudan oo civil warba ka nafta isugu keenay waa laga shaqaystaa marka waxaan u arkay runtii dee meelaan ka shaqaysan karayo oo jaaliyad reer somaliland oo xoog la joogto oo runtii ama business ha u joogto ama siyaabo kale ha u joogto axmed iminka isbedel badan baa ka muuqda hudheelka baadhidiisa shaqadiisa bal waxaad nooga warantaa isbedelkaasi degdeg ah oo muddo 3 wiig ku siman meelahaas aad dirtaba aad ku samayseen balka maxamedow wiileen baa the hard way waxaanu si adag bay wax noo bare waxaanu markaa runtii mashruucan security-ga hadda aanu samaynay mashruuc hore noogu yaalay buu ahaa laakiin waqtigeed iyo dee madhaatee tanoo qorayd ayaanan u hirgelin waxaanu samaynay kaamarooyin ama CCTV oo hudheelka waad soo aragteen koono kasta ku yaala gidaar weyn baanu ka samaynay aanu hore u jiri jiray gidaarkan iminka dadka lagu baarayo iyo qolkan hore uguma jiri meesha way bannaanayd haddii eebba kuu roo yahay waad aragto iminka walk talkingan meel kasta waa lagu haystaa askarta iyo shaqaale iyo qof walba waa haystaa marka runtii dee waxay ahayd go-aan aan qaatay bay ahayd in aan si degdega suuqa ugu soo noqono waayo customerskayga waa cadaadis lagu hayay dadkii customerska oo runtii meel istaagaan la meel alaa meel istaagaan adeegayaga cidina ma baarabaal garayn karto lama tartami karto service waxaanu dadka u qabanayno adeegaanu dadka u qabanayno oo waxaa ka mid ah adeegaanu dadka u qabanaynay hurdadayada cuntadayadoo anwaac badan ama noocyo badan oo cuntaa dadku qofku doono cuntada noocu doonu ka heli jiray oo weliba qaali ahay hurdadayadu aan qaali ahayn standard aad u wanaagsanaa haddii eebba ku horeeyo waxaan kaloo leenahay guryo aan hotel lihi jirin apartments hotel magaalada lihi ma jiro waxaa maaragtay madaxda dawladdu ay doonaysay guryahaasay doonaysay oo deputy prime ministerku mid ka mida ku jiray marka unique service ama service gaar ah ayaan runtii magaalada ka qaban jiray marka customerska iyaga magaalada walaahow ku jira ayaa waxa ugu badan ay ugu qasbeeyay inaan hudheelkii dib u furo ka mid aha marka laga tago in laftigayga dee ninkii cadlaha laga kaxaystay miyaa cudud lay sheegtay gabar yar baa dee oo hoosteeda ku jirta bay baabiisee dee rag ba ismaanu arag moogta ciidan iyo waxaan u diyaar garoobayay isma baanu aragnay inan yar aniga laftigaa boor igu taagnay inaan inanta yar aanay baabiin oo dhoora inan baabayso iska cararay marka determination ama maaragtay go-aan adag oo aan qaatay inaan waxaan ka hubiyo ilaa 3-4 shirkadood baan geliyay oo aan waqti wada qabtay shaqadan ilaa dhowr bilood waa qaadan lahayd laakiin shaqo kasta iyo qayb kasta 2-3 shirkadood baan geliyay aan 5 casho gudahood 7 days maximum igu sameeyay marka maalintan kontraada bixiyay ayaan go'aansaday maalintan furayaan inay noqoto maalintan noocaas alxamdulilah sidii aan ku tashaday baa ilaahay u sameeyey waana furay dadkina sida looga soo qayb galay dee kolley home cable way timide 100 qof baa noocaas oo 160 qof baa yimid oo kala duwan oo community oo dhan cid walba ay community hudheelka dee cid walba saaxiib laha marka runtii waxaan rajaynaynaa inaanay waqti badan nagu qaadanayn inta dadka iyaga ogaanayaan in hudheelka dib loo furan bay u baahan tahay inay ayuun baa laga yaabaa in hoteelku uu sii yaraha tuquntuqoodo laakiin qof kasta oo hudheelka yaqaanay meel kale ku degi maayo dadkii dhaawac ahaa baa London nagala soo hadlayay maanta oday Cismaan Jaamac la yidhaahdo dadka hudheelka tacabka badan geliya ka mid ah ayaa soo hadlayay maanta lay sheegay waan soo socdaa buu yidhi qolkayga iyo hawshayda ii diyaariyay dadkii wax ku noqdo la dhan loo qaaday marka dadku ma doonayaan in danahooda dee la carqaladeeyo marka wixii ugu miskiinsanaaba annaga wax na yeelay
waxaanu filaynay kaarayaal iyo technicana soo weerarsaanu filayn oo u qalab samaysanay moogta laakiin haddii kuwaas wax ku yeelaan dee rag waaweyn baa wax ku yeelay laakiin inan yaroo shaqaale ah oo weliba dadka ugu itaalka daran hudheel ka mid ahayd ayaa khasaaraha noo geysatay axmed bal maadaama hawsha intaa laga dhacday dhaqaalaha intaa laga dib ugu dhistay hudheelkii markii horena dhaqaale gelisay qofka ganacsadiina uu meel walba ka shaqaysan karo oo u arko inuu dee noloshiisa uu ka dabari karay fikir ahaan markaad qiimayso maalgelin intee leeg baa kaa gashay muqdisho ood hawshan iyo muddada iyo waxaasoo dhan aad kaga shaqaynaysa qiyaasaan aad ku samayn hudheelku de waad garanaysaa waa gurigii jirta xuseen allah u naxariisto laakiin isagoo bereliga oo burburay baan nimid annagu waxaan u arkinay de guri annagu aan leenahan u arkinay marka hanti badan baanu gelin marka guryaha hantida aanu gelinay ismaan lahayn meel fog baydii ka tagta waxaanuna aaminsanay inaanay wakti badan nagu qaadan inaanu kala soo noqonan runtii haddaan dhibtan nagu dhicin waxay nagu qaadan lahayn muddo aada u kooban inaan hantidaydii kala soo noqon waayo hoteelkan iyo servicekan iyo meeshuu ku yaallo intuba waa unique marka waxaanu isleenahay haddii kole dib bay noo rideen waayo sanad aanu tacab ku soo jiray oo labada wiiga ugu dambeeyay baan waxaanu gaadhay heer aanu dhahaan sorry waa buuxnaa meel ma hayno labada wiiga ugu dambeeyey laakiin intii hore oo dhami 50%, 30%, 40% ayuu hudheelku buuxi jiray waxaan isleenahay kolay ugu yaraan dhowr bilood ayay dib idiin tuureen laakiin meesha xamar baa la yidhaahdaa hudheelkaa waa la qarxiya cidi kagama tagto weliba mid baa jirta marka lagu qarxiyo waa marka alert noqoto waxaa la yidhaha maaragtay vaccinationka dadka la duro tallaalka carruurta iyo cudurrada laga duro macnaheedu waxa weye cudurka laftigiisa lagugu duraya markaa jirkii baa u diyaar garoobaya inuu iska celiyo markaa cudurkii diyaar buu noqonaya hadduu cudurka iyo viruska oo kale arko wuu iska difaacaya runtii annaga waxay noo noqotay vaccination bay noo noqotay tallaal bay noo noqotay securityga iyagu iyo dareenka iyaga security ama nabadgelyo kii hore aad buu uga sarreeya aad buu kii hore uga sarreeya waxaanuna aaminsannahay in messageka ah in hoteelka securitygiisa la adkeey aan waqti badan dadka ku qaadanayn inay gaaraan makal mukarabada ayaaba dhow la qarxinayay jasiira habeen walba waa la qarxiyaa cidi kagama tagto annagana cidi nagaga tegi mayso waxaanu aaminsannahay ka kastamar badannahay oo simbati badan dad noo haya ay jiraan axmed su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan adoo muqdisho ku nool maalin walba dhibi ka dhacdo qaraxyada caynkale aanay ku cusbayn maanta adigoo ku soo gaadhay berri shalay uu ku maqnaa nin kula mid oo ganacsada berritoole uu qof kale ku maqan yahay wixii ilaahay qoray inay haddana nolosha socoto fariinta dadku ku farayaanna ku leeyihiin qofkii ilaahay dilay unbaa dhinta yacni markii noloshii aaminaadii iyo culayskii wax baaba ma aaminsantay yacni in dhibkii uu noqday wax ummaddii la qabsatay oo ah qofkii ilaahay dilay unbaa dhintee noloshooda waxaa runtii qofka alla dilayaa dhinta aniguna markii hore iyo hadda baan ka geesisanahay markii hore runtii waxay u jiray baqdin bay u jirtay laakiin markaan ogaaday meel intaasoo qof ku dhimatay oo kii dhinacayga joogay uu dhintay inagana ilaahay xariiq aanu gaadhsin waxaan garawsaday alla dilaa dhinta qofkuna New York baa lagu dhintaa London baa lagu dhintaa meel walba waa lagu dhintaa waxaana runtii waxa la sheegay bari oo dhacday Canada meel marathona ayaan isku qarxiyay oo Canada dad badan ku dhintay marka waxaan phenomenal kana ama waxaan gaar ka ahay marka soo baxay meel kasta way joogaan qofkii alla ugu talagalay ku dhimanay magaaladan 25 sano dad baa ku dhimanay dadna way ku noolaayeen oo ku shaqaysanayeen oo ku dhalayeen oo caruur ku dhaqanayeen qof hal maali yibina uu ku dhintay marka waa qorshe rabbi qof walba meesha lagu talagalay ku dhimanay marka runtaan waxa isleeyahay warkan ah alla dilaa dhinta waa run meesha alla kugu talagalayna waad ku dhimanaysaa meesha alla kugu talagalayna waad ku dhimanaysaa marka anigu geesinimo baan ka qaaday imika runta markaa ku sheegay geesinimo baan ka qaaday waa tagu lifta udaalkii inaan istaago anigu dib u dhiso oo lacag dambe dib u geliyo oo furo
oo ka shaqaysiin. waxaa tahay qof ganacsadaa caruur iyo wax badan iyo xaas iyo qoys iyo dad badan baad leedahay maadaama dhibkan dhacayna haddana dib baad shaqadii waqti kooban dib ugu furtay ehelkaagii warwar badan baa laga yaabay inay ku jiraan dhibaatada intaa laga soo gaadhiyo dadka bal ka waran qoyskaagii fikradaha iyo dareenka kaaga yimid inaad muqdisho oo dhibaatadaas kaaga dhacday aad ku noolaato caruurtaadii ehelkaagii cid walba bal ka waran runtii xitaa intaan dhibaatada ugu dhicin baa reerkaygu dareen qabay reerkayagu aad iyo aad bay igala taliyeen inaan xamarto waxay gaadheen heer ay yidhaahdaan xaajiga madhaawo tiisi baa gashay isaga soo duceey markay tani dhacdayna ee aan ka badbaadayna qaar waxay yidhahdeen dee naftaa kaa hadhi weyda adigu ma doonaysid nafta saas yidha markaa runtii reerkaygu aad bay dareen uga qabaan caruurtaydu aad bay dareen uga qabaan laakiin waxaa igala weynaaday ninkii intii la qarxiyey buu cararay aad bay igala weynaatay runtii waxaan liqi karayey way noqon weyday xitaa haddaan ka tegayo horta meeshaan dhiso businesskaan kiciyo wuu cararay meeshaa ka baxdo businesska haddaan doono ama aan iibiyo ama cid kale ku wareejiyo si kale inaan uga baxa mooyaane businesskiyo maaragtay dhulka yaala ka carar cidna waa ka siisan waay laakiin anigu runtii marka run loo hadlo waqooyigana business baan ku leeyahay yurubna business baan ku leeyahay marka aniga business la-aan ima hayn laakiin adventure baan ku jiray waxbaan proof garaynay marka reerkaygu dareenkaa wuu qabaa kuwa caruurtaydu way qabaan laakiin inaan si kale iyo nidaam kale u gala mooyaane way ila cuslaatay inaan cararo ma doonayaan ehelkaagii adiga laftaadii maadaama dhib dhacay in lagu arko dadkiisa aragtaan kulantaan qoysaskaagii u tagto oo noloshii yani aad dareento recovery badan oo reerkaygii qoladii yurub baan ku socdaa ingiriiska berri baan tegay haddii idan kale ka dhigo kule dee marka wax dhacaan markii horeba qorshaha ay ku jirta inaan noqdo oo xilligaan noqon jiro dhowr bilood baan 6 bilood 7 bilood baan ka soo maqnaa laakiin dee marka wax kugu dhacaan inaad kolley reerkii iyo caruurtii iyo comfort soo siiso ama maaragtay niyadda u soo dejisaa oo wax aad u muhiima marka waan noqonayaa insha allah communitygii iyo jaaliyadii meesha joogtay iyo dee dad badan oo reerkayga maaha jaaliyadoo runtii dareen xoog leh ka muujiyay wixii meesha ka dhacay ayaa jira magaalo aad reer waqooyigu ugu badan yahaadoo Sheffield la yidhaahdaan deganahay magaaladii Somaliland aqoonsan jirtay marka 80% dadka jooga waa dad reer waqooyiya oo dad saaxiibadaya oo dad ehela marka dareen xoog leh ka muujiyeen runtii wixii ka dhacay fariimahooda ay soo gaadhay xitaa markaan xidhnaa MB-yada loo tegey nin Ingiriis halkaa ku xidhan marka aad baan runtii maaragtay ay ii sugayaan inay arkaan anoo nooloo soconayo caafimaad qaba dadkii dhibaatada soo gaadhay qoysaskoodii saaxiibada eheladoodii dadka dhaawacay marka ah dadka dhintay wax xidhiidh oo weli idin dhex marayo qadde noloshoodii iyo dareenkii iyo wixii aad aragtay aad kaga warbixinaysaa ama kaga jawaabsaa ama dareen walaalnimo ma taasi ma dhacday ugu dambeyntii horta dee waa taan ku sheegado wiigna waa xidhnaa 2 wiigna hoteelkaan dhisay wixii meesha ka dhacayna wax dee lagaba geeyoon kara maaha ilaa iyo hadda runta markaan kuu sheego ma garanayo inta qof ay ku dhimatay meesha ilaa iyo hadda 25 baa lagu sheegaa laakiin anigu mararka qaar wax isla 30 madaxay la dhaafay laakiin nambarka saxda ma ogi dad badan adigu kuwa dhaawacaan aad soo aragnay labada qof ee shaqaalaha iyaga naga dhintay kole xiriir baan la sameynay dadkoodii dadka kale laakiin tacsi iyo wixii dad badan oo waxay iminka ilaa dhowr iyo 10 qof baa hudheelka degana dhowr iyo 10 qof badankooda lacag baa lagu wada lahaa marka waxaan sameynay wixii hudheelka iyagu deganaa iskood ee lacagta iska bixin jiray ee dhintay wax kasta lagu lahaadee inaanu ka cafino waanu ka cafinay si aanay dee culays ugu noqon qaraabadii iyo dadkii maaragtay uu ka dhintay qofku iyagoo dee ku jira maaragtay tacsi haddana haddii la yidhaha $5,000 baa ninkii lagu lahaa
dee waa culays kaloo soo fuulay oo agoontii iyo soo fuulay marka waxaanu samaynay dadkii iyagu hudheelka sidooda u deganaa inaanu ka cafino lacagtaas laakiin wixii ama laga bixin jiray ama cidi ka bixin jirta ama dawlad ha noqoto ama local government ha noqoto iyaga de sidooda un baan uga doonan marka runtii dadka mar kale aan u tacsiyadeynayna de qof walba naf walba kulley way dhimanaysaa say ku dhimato mawdku magacyo badan haska yeeshay laakiin dhimashadu waa isku mid ma booqan karnaa meeshii dhibaatadu ka dhacay booqan kartaa waxaanu ku xidhnay dayr baanu ku xidhnay masaajid iyo hoolka unbaa dee weli burbursan waxaanu doonaynaa in masaajid ka fiican kii hore ama ka weyn oo xitaa dabaqya noqon kara inaanu ka samayno ma aqbali karno in cibaadada iyo maaragtay salaadayada aan uga tagno dad aan waxba garanay masaajidka dib baanu dhisanaynaa waliba mid weyn oo masjaamac aan dhisay adigaa mudan dawladeen halkaan aad arkaysaan waa goobtii isla goobtii uu ka dhaxay qaraxii ka dhacay hotel central ee magaalada muqdisho waana goobtii uu masaajidku ahaa iyo sidoo kale halkii la dhigay gaadhiga geystay qaraxa hore ee dadka masaajidka dhibaatada culus marka hore gaarsiiyey axmed ismaaciil oo isagu mulkiilaha hoteelka oo joogna ahaa oo ku tukanayay siduu sheegay safka labaad ee masaajidka bal ayaan weydiinayna aragtidiisa goobtan markii ay wax ka dhaceen maxamed oo halkaasaa gaariga la dhigay masaajidkiina waa kan anigu safka labaad baan ku jiray weliba waan soo kacay waxaan u jiray gaarigaas iyo anigu 2 mitir baan isu jiray markii qarax ku dhacay idaarkii gaariga ku wareegsanaa ciid buu noqday waad aragtaa meesha xabadii kama taalo idaarkaasu ciid buu noqday marka laga reebo litirka sare oo shubaxa litirka ugu sarreeyo halkaas waa halkaa ka muuqda bal friis waa ku halkaa ka muuqda litirkaa marka laga reebo wixii kale ciid buu noqday dadka halka ku dhintayna 2-3 qof waxaa dilay litirkaas oo ku soo dhacay way wuxuu way dhaceen jiingadii baa soo dhacday waxaa soo dhacay looxii baa soo dhacay korontadii baa soo dhacday marawaxadii baa soo dhacay oo baa soo dhacay dadka qaar koronta dishana way jirta masaajidkana ilaa 5 qof baa ku dhintay masaajidka gudihiisa dhiigooda wakaas waa kamaanu qaadin waayo labadaa gidaar weli waa taagan inkasta hoos aad u liito marka meesha intaasu jirtaa dadka ugu badan halkaas ku badbaaday masaajidkaas ku badbaaday dadka ugu badan ee badbaaday masaajidka gudihiisa ku badbaaday waana dadka ugu dhawaa qarax dadka kale halka waa bartan way bartanahay aan hoosta labadeena ugeeyna hoostooda marka meesha markaa ay maaragtay ruufkii soo dhacay markuu ruufkii soo dhacay dadkii ugu horreeyay aanu ka soo baxay baa meelahan ay meeshan ka soo baxay
galaan waayo wadda albaabka wakaa albaabka ku soo socda marka meelaha markaan marayay ayaa arag laba qof baa albaabka iga xigay labada qof kumoodi garan waayo albaabkaa furaa waxaa soo galay faliidha baa soo galay marka layska iyo xoogga qarax ayaa cid walba ka dhigay kaana dib aan dhacay waxaan kaaga sheekeynaya karaa minidka ugu horreeyay markaa waa minid laaban waxna lama maqlayn way maqalkii baa tegay moogta qaraxa awoodiisa maqal markaa in dhulka oo dhan dhiig baa wada yaala waxaan waa dhiig kaas waa dhiig baan maqlaynaya waa dhiig baa wada yaala halka ninkaa cagiisa oo arka dhiig baa yaala meesha oo dhiig baa wada yaala marka waa meeshaan ku leedahay masaajid ayay ahayd insha allahna dib baan u dhisanaa mid ka fiican baan u kan waa hoolka iyagu shirarka dhaawac weyn baa gaaray kaa dambeeya isagana dib baan u dhisanaa insha allah waa halka hoolkiisa marka soo baxay waa bartay gaariga ka baxsan daddoona waa geli kartaa ama halkan waa ka arkaa أنا لفت الغرب أحيانا وأنا بس من الرب يبدأ يحيي على المشي ما يقرأ بس هو ينام فصدق على الأول ما كان بك بالبالي أعرف ضربة يوم مين اللي يشوفه ما يعرف وحباب مع مبدأات أول السنة أنا حتى وقته لواحد أول غير العادة مش كده وحول ما نحسي واحد صدق marka halkan ay joogtay markii ay madhaamiyirsatay bay soo baxday abtimeeyada doonaysa inaan aragtay maxamed alla abtimeeyada doonaysa dabadeedna dee halkaas na isku qarxisay dad badan baynaysay naftigooda dad aad badan baynaysay laakiin tiradii exact cid ku sheegi karta ma jirto أحمد دي سؤال عن مركي هوري فلينا قبل يجي واحد يسوق الحديث أو يجي قال هل يسوق الحديث يحضرين نقد لهم قبل waxay siiyay baafki halkaas ay siiyay xijaabkaas ay siiyay way marka idima arki karto hal yar oo fes yar oo ku xiran waxa la arki kara ma macnaha meesha ku jira waxay la soo gashay meesha sida dadka la soo gashay laakiin waxa la soo gashay gaarigeeda sida la soo gashay ama ilaah baa say kula soo gashay ilaah baa shadadeeda ku soo kuran kartaa laptop ku soo kuran kartaa dadka waxa leeyahay laptop isku xas ila laptop isku xas laptop keedi ina isku xas sababta ka sheegay waa laptop keedi lama hayo laptop keedi laakiin waxa lagu ogaan kartaa baaris ku jiro wixii baaris wax yeelay ma dooranayna sheekada la dhamaato marka intii loo dhiso shaqo badan baa waxday laakiin beriyoodka waxaa soo leeyahay qofka hor ishraafta